bismillaahi raxmaani raxiim ugu horreyn waxaa mahad iska leh eebbe weyne halkan isku keenay marka labaad waxaa mahad iska leh saxafiyiinta quruxda badan ee garbahayga taagan ee maanta reer gaalkacyood ee diyaarka u ah inay maanta halkan aragtidooda ku soo bandhigaan maantay waxay ku asaysan tahay 3 May oo ah maalin loo asteeyay saxaafadda caalamka oo dhan maalinta xorriyadda hadalka dhammaan haddaan nahay saxafiyiinta Soomaaliyeed ee gaar ahaan ku nool magaalada Gaalkacyo waxaan la qaybsanaynaa saxafiyiinta Soomaaliyeed saxafiyiinta caalamkaba maalintan quruxda badan leh sidoo kale waxaan markasta garab taaganahay xaaladda uu dalku ku jiro markasta aan jecelnahay in ummadda Soomaaliyeed aan u rajeynayno inuu dalku uu markasta u gaaro guul iyo barwaaqo anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda wafaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka Galmudug waxaan codkayga ku biirinayaa oo aan aad ugu xumahay in muddo 20 cisho ka badan in magaalada Gaalkacyo uu ku xiran yahay Maxamed Cumar Yuusuf oo kamid ah saxafiyiinta magaalada Gaalkacyo gaar ahaan ka howlgalay idaacadda deegaan ee magaalada Gaalkacyo xilli hamiina waliba lagala baxay xarunta idaacadda sidoo kale shaqaalaha iyo maamulka idaacadda waxay noo sheegeen in sidoo kale wariyaha iyo qalabka idaacadda sidoo kale la qaatay haddii aan nahay saxafiyiinta gobolka Mudug sidoo kale anagoo ku hadlay afka wasaaradda waxaan aad u cambaareynaa in muddo intaas la eg nin saxafiya la iska haysto asagoo aan la soo bandhigin dambiga uu leeyahay iyo sidoo kale aan la cadeyn sababaha lagu haysto marka waxaan codsanaynaa in haddii uu dambi leeyahay dambigiisana si mubaaxa dadka bulshada loogu soo bandhiga haddii uu si dambi lahayn in si degdeg ah oo bila shuruud loo soo daayo